daawada ay dumarka u bixiyeen mataanaha magac ahaan loo yaqaano clomiphene ama clomid. waxaa had iyo jeer u batay inay isticmaalaan bilaa dhakhtar la-aan ama iyadoo aan goob caafimaad loogu soo qorin dumarka qaybahooda kala duwan, ama hooyooyinka hore usoo dhalay ama kuwa hadda guurka uu ku cusub yahay. inta igu cusub aan hore subscribe-ka ii saarin, waxaan si gaara idinkaga codsanaa inaad kanaalka kusoo dhawaataan, subscribe-ka aadna siisaan. taasi waxay noo tahay farxad iyo inaan hore u socon karno, dad badanoo bulshada qaybo kala duwanna uu gaari karo kuna soo xirmi karaan. maanta waxaan dul istaagaynaa daawo ay had iyo jeer aada u isticmaalaan dumarka qaybahooda kala duwan. daawadaasoo noqotay waayahan dambe in ayadoo dhakhtar uusan kuu soo qorin ama isbitaal aan lagaaga soo qorin inay qaataan. daawadaas waxaa loo yaqaanaa clomid ama clomiphene, waxayna ka tirsan tahay gruubka loo yaqaano selective estrogen receptor modulators marka loo fiiriyo pharmacology ahaan dhanka iyo daawada. garaamkeeda waxaa ka kooban tahay hal daawo, waana 50 miligram. daawadan waxaa loo qaataa dhalmayarida soo wajahda dumarka ama hooyooyinka. marka labaad waxaa loo qaataa marka ee ugxaanta dumarka ee aada u kori waayaan, kuwaasoo dib u dhac weyn uu ku imaado, balse ay jiri karto in ay uur ay qaadi karto. marxalado kala duwan oo la xiriira dhanka ee dumarka ayaa loo qaataa daawadan. daawada clomid ama clomiphene si guud ahaan waxaa loo isticmaalaa marka ay jirto dhalmo la-aan soo wajahda dumarka ama hooyada. marka labaad waxaa loo qaataa marka ay cilado ay ka jiraan dhanka iyo caadooyinka ama hormoniska la xiriira dhasha. daawada clomid ama clomiphene waxay la xiriirtaa in loo qaadan karo haddii hooyada marka hore ay dhali jirtay si caadi ah ay ugxaanteeda u bacrimi jirtay, balse waayahan dambe ay ku imaadeen daciifnaan iyo inay kori waayeen ugxaanta, fertilizationkuna ay ka qayb qaadan waayeen. ayaa mararkaas xaaladaas ee lasoo deeristo wuxuu dhakhtarku uu go-aamiyaa inay isticmaali karto. sidoo kale hooyooyinka uu ku yaalo waxaa loo yaqaano polycystic ovarian syndrome, taasoo hoos u dhigaya in ugxaantii haweenka ay sameysmaan, ay koraan, ee bacrimin ay ka qayb qaataan. marxaladaasoo ka mid ah burbiyood ku sameysmaya qeybta hoose oo ay la xiriirto isbedel ku imaaday dhanka iyo dhacaamada, ayaa waxaa saameynaya inay ku sameysanto dhanka iminka waxa loo yaqaano polycystic ovarian syndrome. marxaladaas waxay sababaysaa inay hoos u dhigto ugxaantii diyaarka ahayd ama inay bacriminto ee ka qayb qaadato in fertilizationka ay maraan ee ubadna ilaahay uu ku beero. daawada clomid ama clomiphene haddii haweenku loo soo qoro, waxaa muhiima sidii loogu soo qoray iyo sidii saxda ah inay ugu isticmaalaan. balse waa khatar in iyadoo dhakhtar uusan kuu soo qorin aada rabtid inaad isticmaashid adoo ka raadinaya waxa loo yaqaano mataanaha. sida guud ee loogu talagalay daawadan, mekanismka ama habka ee u shaqeyso waxaa lagu soo koobay 2 qeybood. hooyooyinka ugxaantoodu aada u daciifeen, balse markii hore shaqeyni jiray, caadina u dhali jiray, bacrimintoodana ay aada u fiicneyd, inay ka saacido in ugxaantoodu aada ay u koraan ee ay noqdaan kuwo caadi ah oo dhali kara. sidoo kale hooyooyinka sida caadiga ah u dhala, balse daneynaya mararka qaarkooda in dhashoodu ama bacrimintooda dhanka iyo ugxaanta ee aada u saa-ido, taasoo ay rajo ay ka muujinayaan inay noqon karto inay hesho multiple ama twins, wax loo yaqaano mataana. sababtoo ah bil walba hooyada waxa dhici karta in fertilization eggu ay gudubto hal ugxaan, halka qofka markuu isticmaalo daawadan ay noqon karto in ka badan 2 ama 3 ugxaan ay gudbi karaan, lana falgali karaan dhanka iyo bacriminta, taasoo ay suurtagal tahay inay qaadi karto uur, mataano ama wax ka badan. daawadan ee dumarka u garanaya mataanaha, marka uu qofka u isticmaalo waxay si toosa ula falgalaysaa dhanka iyo hormoniska, gaar ahaan waxay dhambaal qaldan ama fariin qaldan u direysaa dhanka iyo maskaxda.
qanjiriska ku yaala ama xubnaha maskaxda ku yaala loo yaqaano hypothalamus iyo pituitary gland. waxaa loo yaqaano mechanism negative feedback, taasoo ah inay ka dalbanayso inuu jiro estrogenki inuu aada u yaryahay aysan samaysmi karin dhanka ugxaanta dumarka. meelaha ay fariinta qaldan u dirayso waxaa kamid ah hypothalamus iyo pituitary gland, labadaas xubnood oo ku dhex yaala dhanka iyo maskaxda. fariimaha ay dirayso waxay noqonayaan in hypothalamuska uu soo daayo hormoonka ugu horeeyo ee ka qayb qaadanaya in la active gareeyo sexual hormoneska, gaar ahaan kuwa loo yaqaano follicular stimulating hormone iyo luteinizing hormone. hormonkaas active gareynaya labadan hormone waxaa loo yaqaanaa gonadotropin releasing hormone, wuxuuna ku yaalaa dhanka iyo maskaxda, gaar ahaan hypothalamuska. haddii hypothalamuska ay soo daayaan waxay si toosa u amrayaan labada hormone loo yaqaano follicular stimulating hormone iyo luteinizing hormone inay si toosa ula falgalaan dhanka iyo ovariska ama ugxansidayaasha si ay u active gareeyaan ama ay u soo daayaan estrogen badan, kaasoo ka qayb qaadan karo in ugxaantii ay noqoto mid bacrimi karta, gudbi karta dhanka iyo uteriska, la falgali karta isbeermaha, taasoo ay si fudud ay ku qaadi karto gabadha ama hooyada uur. sidoo kale daawadan waxaa loo siiyaa markii hooyada ee sideeda caadiga ah ee caadada u imaani jirtay balse isbedel dhanka caadada uu ku dhacay ayadoo dhasheeda hore ee aada u fiicneed, menstrual cycle-ka ama periodka ee caadada ugu imaaneysa oo aada u fiicnay, taasoo ay noqotay wax loo yaqaano amenorrhea, inuu isbedel uu ku dhacay ee caadada iska weysay jiri karto wax loo yaqaano amenorrhea. marxalado badan ayaa hoos imaani kara. waxay u baahan tahay taxadar badan in la muujiyo marka ay isticmaaleysa haweenka ama dumarka. waxay si toosa ula falgalaysaa dhammaan qeybaha kala duwan ee jirka, waxayna saameyn ku sameyni kartaa marka ugu horeyso aragtida qofka, taasoo ay ka dhigayso qofka in aragtidiisa aada u daciifto, isbedel weyn uu ku yimaado, visual disturbance uu ku dhaco, in qofku waxba uusan arki karin, saameyn dhanka aragtida ee kusoo baxday. sidoo kale waxyaabaha kale oo aadka u muhiim badan qofka saameyni karo waxaa kamid ah inuu isku arko gastrointestinal disease, cudurada dhanka iyo dheefshiidka ku dhaco, calaamado badan inuu isku arko dhanka iyo dheefshiidka. sidoo kale waxyaabaha kale oo kamid ah uu isku arki karo qofka marka uu daawadan isticmaalo ama haweenka markay isticmaalaan. sidoo kale gabdhaha ama haweenka daawadan isticmaala waxaa muhiim ah in ay ka taxadaraan inay isku arki doonaan weight gaining, miisaankoodu inuu aada u bato oo aada miisaan badan u fuulo, taasoo ay ka dhigan tahay daawada inay qalad badan u geysanayso metabolismka ama falgalada dheefshiid oo jirka uu sameysanayo, taasoo qofka ku abuureyso marka inuu jiro miisaan aada u saa-idaya jirkiisa. sidoo kale qofka wuxuu isku arkaa xanuuno la xiriira dhanka iyo miskaha ama pelvic area. sidoo kale wuxuu kaloo isku arkaa ama qofkaas baaritaano markii loo sameeyo in ovarian enlargement uu ku dhacay, ugxansidayaashiisu aada u weynaadeen, taasoo ay tahay side effectska ama waxyaabaha muhiimka ay tahay inay saameyn ay ku noqon karto. gabdhaha daawadan isticmaala waxay kaloo ay ku keeni kartaa waxa loo yaqaana deep vein thrombosis, in ay aada u xinjiroobaan ama aysan shaqeyni karin xididaha hoose lugaha, inay xinjiroobaan oo dhiig badanna uusan gudbi karin, dhiig badanna uusan ka imaani karin circulationka hoose ee qeybaha hoose ee jirka. ayadoo sidaas ay tahay ayaa waxaa la muujiyey taxadar badan, ayadoo ay waxyeeladeedu ay saaid ay tahay daawadan waxaa laga mamnuucay haweenka ama gabdhaha qaba beer xanuunka ama beerka ka jiran ama cudurada beerka ay ku dhaceen. waa ka mamnuuc inay isticmaalaan sababtoo ah hadday qaataan waxaa istaagayo habshaqeyntii iyo qaabkii shaqadii uu u wadi beerka, taasoo waxyeelo ku noqon karto qofkana uu dhiman karo. sidoo kale gabdhaha isku arka mar walba dhiigbax dhanka hoose ah ama uterine bleeding uu jiro, ayagana waa ka mamnuuc inay isticmaalaan in daawada ay qaataan colomed ama colomafin. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, aada iyo aada idin kaga mahad celinaa dhageysiga iyo la socodka kalibiska aan soo geliyay fiidiyoga.
waxaan idin leeyahay dhammaantiin waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.